kulan ballaaran oo xalay isugu yimaadeen qaybaha kala duwan ee bulshada, ganacsatada, odayaasha, dhalinyarada iyo guud ahaan xubnaha ururka suxufiyiinta Soomaalida ee SOJSA ayaa xalay waxa uu ka dhacay xarunta ururka suxufiyiinta SOJSA ee magaalada Cape Town. Kulankan oo ay soo agaasimeen suxufiyiinta Soomaalida South Africa ayaa waxaa looga hadlay dilkii Allah u naxariistay shalay galab loogu geystay magaalada Muqdisho agaasimihii idaacadda Shabeelle ee magaalada Muqdisho Xasan Cusmaan Cabdi Fantastic. gudoomiyaha ururka Cabdikariim Mursal Faarax ugu horreyn goobta ka hadlay ayaa u tacsiyay eheladii qaraabadii uu ka geeriyooday Xasan Fantastic waxaana Allah uga baryay in jannadii firdowsaydu uu ka waraabiyo. Ilaahi wa inna ilayhi raaji'uun. Waxaan halkan u galo fadhinaa shir degdeg ah oo ay qabteen ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed ee dalkan Koonfur Afrika. Shirkaas oo aan isugu imaanay in aan tacsiyo u dirno wariyihii ku geeriyooday galabta magaalada Muqdisho, wariye ahna agaasimaha Radio Shabeelle Xasan Cusmaan Fantastic. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Ayaan markale waxaan u tacsiyadeynaynaa dhammaan dadkii eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday gaar ahaan suxufiyiinta Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Sidoo kale ganacsade Xaaji Yaasiin ayaa isna wax laga xumaado ku tilmaamay in dil loo geysto wariye u shaqeynaya shacabkiisa una dhabar adeegaya marxaladaha adag ee ka jira wadankiisa. waa iska caadi wax wadan hadduu ku jiro halgan oo yani u halgamahayo midnimadiisa iyo xornimadiisa iyo karaamadiisa iyo sharaftiisa in laga bartilmaameedsado meelaha halbowlaha ah oo wanaagga laga horumari karo sida saxaafadda. suxufiyiinta waa la dilayaa, waa la laayaa, waana ka xunnahay, laakiin ha ogaadaan in ay tahay halgan ay waddankoodii u soo galahayaan oo taariikhdu ku xusi doonto sida halgankaas aynan uga niyad jabin, uga cabsanin, geesinimo si leh ay meel walba ugu galaan. bahda saxaafadda sida geesinimada leh ay xaqa u sheegaan, oo runta u sheegaan, oo diinta u sheegaan, oo wanaagga iyo midnimada waxa keeni karayo ay u sheegaan. waanu ku mahadinaynaa, waanu uga tacsiyeynaynaa walaalkaya marxuum Xasan Cusmaan Fantastic geeridii ku timid. waanu uga tacsiyeynaynaa iyaga iyo eheladii iyo qaraabadii uu ka dhintay. ilaahayna samir ha naga siiyo. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. anigoo ka mid ah ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan SOJSA waxaan halkaan tacsiyo uga diraynaa Allah u naxariistay wariye Xasan Cusmaan Fantastic ahna maamulihii shabakadda warbaahinta ee Shabeelle. waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi. dhanka kale ururka ayaa sagootin iyo dardaaran isku raaciyay wariye Xasan Maxamed Shire Xasan Kaafi oo ka mid ah wariyaasha Soomaalida ee ku nool wadanka South Africa isla markaana muddo badan ka shaqeynayay wadankani Koonfur Afrika. wariye Xasan Kaafi ayaa u mabaxaya magaalada Muqdisho caasimadda wadanka Soomaaliya ka gadaal muddo 7 sano oo ku noolaa wadankani South Africa waxaana uu iminka u go'aansaday inuu ku laabto wadankiisa hooyo. ugu dambeyntii kulankani oo ahaa mid ay hareysay murugo iyo tiiraaya ayaa waxa uu ku soo ilaaday waqtigii loogu talagalay. Cabdillaahi Qorshe, Royal 24 TV, Cape Town, South Africa.